Waalaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ashirkeeni ayaan bilaabaynaa dhammaan soo dhawaada. Ashirkii labaad waaye conception framework oo case of malnutrition. Malnutrition marka la dhahayo waa level kala duwan oo kala baxa immediately cause, underlying cause iyo basic cause waaye. Haddana waxaa loo kala qaadaa individual level, household level iyo community level ayaa loo kala qaadaa. Marka waxay yihiin malnutrition marka la dhahayo laba loo kala qaybiyaa inadequate food intake iyo disease. Labadan qofka haddii nafaqo daro ku imaanayso waxaa cause gareeya inta badan inuu waayo cunto ku filan inadequate food intake ama cudurro sida jadeecada iyo shubanka iyo waxyaabo badan inuu unugaan xanuuno badan uu dareemo kadibna uu galo malnutrition uu sii galo. Marka household food security wuu jiri karaa gurigii oo cunto laga waayo, tusaale ahaan deegaankii oo abaari iyo roob la-aan iyo waxyaabo badan ay soo wajahaan, ama social care environmental deegaanadii oo carekii laga helayay sidii adeegyadii access to health care ama health environmentalkii. Marka haddii la waayo adeegyadii caafimaadka ama la waayo cuntadii deegaanka ama la waayo badarkii ama security oo ku imaado dagaali iyo roobab iyo daadad iyo waxyaabo ay imaadaan ay soo foosaaso dadka ama soo wajahdo cunto yari, waxa imaan karaa ama soo badan karaa acute malnutrition ku soo badan karaa. Marka ama oo ilmihii oo deegaanadii ka bilowdo ama lagu arko cudurro aan jiri jirin sida misilista, sida diarrhea oo kale, WD cudurro dheeri markay imaadaan waxaa soo zaa'idi karaa nafaqa darada. Labadaas case way ku imaadaa cunto yari iyo cudurro. Formal and informal structure waaye. Marka formal ahaan ama informal ahaan structure kana la isticmaalaa political ideology ahaan marka research lagu sameeyay lagu ogaaday in nafaqa darada ay ka imaadaan ilalkan oo kala ah immediate cause, underlying cause iyo basic cause. oo loo kala qaaday haddana individual level, household level iyo community level loo kala qaaday. Marka nafaqa daro markii la dhahayo laba qayb ah loo kala qaadaa acute malnutrition oo u dhiganto laba nooc, severe acute malnutrition iyo moderate acute malnutrition. Severe acute malnutrition laba nooc haddana usii kala baxdaa, severe acute malnutrition with complication iyo severe acute malnutrition without complication. Marka with complication waa SCG waaye, without complication waa SCG waaye, without complication waa OTBD waaye. Moderate acute malnutrition waa nafaqa daradii normalka aheedoo moderate aheed waaye, TSFV loo yaqaanay. Severe acute malnutrition without complication hadday tahayna programkii OTBD criteria lagu qabanayo aan casharkii hore kusoo sharxani waaye. Severe acute malnutrition with complication hadduu yahayna waa diseaseski related laha, ama pneumonia laga helay, measles laga helay, ama shubana lagu arkay, qandho sara lagu arkay, xanuuno zaa'id lagu arkay, unigi safir waaye, appetite ma qaadanayo. Markaas complicationadaas uu yeesh ama malmaatadii ku guul darayso inuu test sameeyo, markaas aan la dhihi karaa severe acute malnutrition with complication la dhihi karaa. That is all. Asharka xiga intaan ka gaarayno anigoo idin leh Ibrahim Abdiraxmaan. Maalin wanaagsan. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.